maxaad ka ogtahay sababta aadan farax looga qaday booskii afhayeenka golaha federeeshinka dalka Itoobiya iyo sababta Aagany Utashaagar oo ahaa madaxweynihii hore ee Axmaarada loogu doortay booskaas isla markaana afhayeen ku-xigeen looga dhigay Marwo Sahra Umad oo deegaanka Canfarta ka soo jeeda. ugu horreyn si aan su'aalahan uga jawaabno waa inaan fahanno sababta markii hore aadan farax afhayeenka aqalka federeeshinka loo geeyay. culimada siyaasadda Itoobiya faraqeynsa inteeda badan oo aan wax ka weydiinay waaqaca dhabta ah ee kalifay in xubin Soomaali ah waa aadan farax la geeyo awoodda saddexaad ee dalka Itoobiya marka laga yimaado labada boos ee kala ah ra'iisul wasaaraha iyo afhayeenka golaha wakiilada shacabka ee dalka. waxay faaqidayaan in aadan farax booskaas loo geeyay in abiyi laba arrimood oo kaliya ku fushado kuwaasoo kala ahaa in aadan farax iclaamiyo dagaalka waqooyi oo la dakanayo Soomaaliyeedkeed iyo in laga saxiixo 30 qabale oo cusub oo inta muran la geliyo aadan farax la ogoleysiyo inaysan doorasho ka dhicin kadibna Canfar looga ansixiyo. waxay culimadani daliishanayaan ka sokow booskan oo ay Tigray kas u baneeyeen inaysan abiyi ka ahayn xaqsoor oo Soomaali intuu qiimeeyay baaxadda dhulkeeda iyo tirada bulshadeeda kadibna garowsaday inay dulmanaayeen oo uu xuquuq ahaan ugu gartay balse uu dantiisa ku watay oo rabay inaysan iclaaminta dagaalka waqooyi yeelanin qowmiyadiisa Oromada iyo seediyadii oo Axmaara ah si aysan qowmiyadiisu dakana gaar ah iyo colaad dhito u taala ah taariikhdu ugu qorin oo bari ka maalin ugu yaraan loogu colaadinin haddii aan lagaba argoosan. waxaa taas dheerayd inuu seediyadii oo Axmaara ah ka leexinayay iclaaminta dagaalka si aan loogu malaynin in Axmaaro ka dabaqtayso colaadda gaamurtay ee ay weligoodba u hayeen Tigrayga gaar ahaan midda dhinaca sheegashada dhulka khuseysay ee ay labada dawladeedan isku hayeen in badan. haddaba aadan farax muddadii uu xilkaas hayay muxuu gaar ahaan Soomaali u qabtay mase fuliyay ujeedooyinkii abiyi ugu cimaamaday booskaas. runtii booska aadan farax loo dhiibay ma ahayn boos fudud ee xaqiiqiyan waa booska awood ahaan saddexeeya ee soo raaca booska ra'iisul wasaaraha dalka iyo afhayeenka golaha wakiilada shacabka wuxuuna u taagan yahay sharci turjumida xalinta khilaafaadka qowmiyadaha iyo xal u helidda isafgaranwaaga xuduudaha deegaamada dalka. waxaa intaas dheer inuu jajabiyo isuna dhelitiro miisaaniyadda dalka. aadan farax muddadii uu awoodda xilka intaas la eg hayay ee Soomaali ku matalayay booskaas iska daa wuxuu shacabweynaha Soomaali u qabto iyo xuquuq federaalka kaga maqnayd oo uga soo dhiciyay wuxuu muran geliyay oo uu doorashadii lixaad ee dalka ka dhacday ka reebay 30 qabale oo gobolka uu isagu gaar ahaan ka dhashay ee ka soo jeedo kamid ah kuwaasoo ay dhammaantood ka dhacday doorashadii shanaad ee tan ka horeysay iyadoo haddii aysan guddiga doorashooyinka Itoobiya ogolaansho ka haysanin aadan farax oo xukumay aqalka federeeshinka dalka ee shaqadaas iska lahaa aysan marnaba suurowdeen in 30 kaas qabale doorashada laga reebo maadaama oo aysan jirin sabab doorashada lagaga reebi karay haba yaraatee wax khilaaf ahna uusan horay iyo dambeysaba uga taagnayn kunaba oolin goob khilaaf ka dhici karay oo 70 kilomitir gudaha gobolka City ee deegaanka Soomaalida ku yaala. ugu dambeynna markuu aadan farax aqbalay in doorashada laga reebo 30 kaas tuulo ee ay doorashadii sidaas ku dhacday kaaga sidarane aadan farax waxaa laga ansixiyay oo uu qalinka ku duugay in 30 kaas qabale ay Canfari leedahay wixii doorashada ka dambeeyay. haddii uu aadan farax awooddaas rabbi makansiiyay ula kici lahaa inuu xuquuqda Soomaali ka maqan ugu soo dhiciyo oo uu raganimo iyo karti muujiyo shaki kuma jiran inuu wax weyn oo dhaxalgal ah taariikhdana u gala uu Soomaali u qaban lahaa isagoo khaasatan abiyi kula gorgortamaya in maadaama iclaaminta dagaalka waqooyi uu dakana weyn u soo jiidayo Soomaali idilkeed oo qowmiyad dhan uu dakanaynayo taas bedelkeeda uu abiyi magdhow u siiyo inuu xuquuqda Soomaali kaga maqan federaalka u ogolaado isagoo aadan aan si kakan ugu dhigaynin ee meelo badan wax ka tusaya dareensiinayana inuu daacad u yahay dakanaha iclaaminta dagaalkana diyaar u yahay oo aan shuruud culus iyo diidmo qayaxan midna kaga dhigaynin bal qaab siyaasi ah waxay dadkiisu xaq u lahaayeen kaga doonaya
taasoo markuu Abiy arko hamigiisa uu ku qasbanaan lahaa inuu aqbalo oo halkaas dulmi badan oo federaalku Soomaali ku hayay iyo duudsigii xuquuqeed kaga hadho laakiin iska daa inuu Aadan Faarax qaabkaas u fikiree wuxuu kari waayay inuu dhulkii isagu shakhsiyan ka soo jeeday ee Canfartu ku haysatay Soomaali badanna difaacidda dhulkaas ku dhamaatay oo inuu dhulkaas dib u mulkiyo ku xidhnayd oo kaliya inuu awoodda kursiga uu ku fadhiyay si sharci ah ugu heliyo uu xataa inuu dadkiisii la xasuuqay iska waayay karti uu ugu hadlo meesha uu Tigray maalin walba hanjabaado kulul warbaahinta u marinayay taasoo noqotay mid maanta ka liftay inay Tigraygu cadawgooda koobaad ee Abiy uga daran u aqoonsadeen inuu Aadan Faarax yahay xilli ay noqoto iyo meeshii uu dunida ka tagana aysan marnaba dambiga uu Aadan Faarax ka galay kaga hadhaynin oo xataa haddii ay hogaaminta Tigray ee maanta inta ay nool yihiin ka tallaabo qaadi waayaan Aadan Faarax ay taariikh qoran magaciisa ugu sunteen jiilka ka dambeeya inay mariyaan ciqaabtii uu shacabkooda u geystay xataa haddii ay qarniyo ka soo wareegto inta uu shakhsi Tigrayhi ifka dul saaran yahay haddii uu Aadan Faarax sii noolaado haddaba Aadan Faarax wuxuu Abiy u cilaamiyay dagaalkii waqooyiga oo weliba si ka badbadis ah oo iska dhaadhicinaha ugu fuliyay wuxuuna si toos ah oo aan inaba gabasho lahayn Canfar ugu saxay inay 30kaas qabale ee gobolka City ka mid ah iyagu leeyihiin kadib markuu doorashadii ka reebay oo labadii arrin ee uu Abiy ka reebay uu ku fushaday ugu dambeynna Abiy wuxuu ka tuuray Aadan Faarax tareenkii uu kirshboyga ka ahaa oo abaalkiisa ayuu kalax ugu shubay wuxuuna booskii afhayeenka aqalka golaha federationka u dhiibtay madaxweynihii hore ee deegaanka Axmarada Aagan Tashaagar isagoo ku xigeen uga dhigay Saara Umar oo deegaanka Canfarta ka soo jeeda laba arrimood ayaa la isku waafaqay inay yihiin sababaha Axmaarkan iyo Canfariyadan boosaskaas loogu dhiibay waa midda koobaad in dastuurka dalka la bedelo iyo midda labaad oo ah in dhulka Axmaara ku haysato Tigrayga la gacan bidixeeyo oo Axmaaro si sharci darro ah loogu sharciyeeyo iyo in sidoo kale dhulka Canfar iyo Soomaali isku haystaan ee aan ki qabale ahayn hore balse ah 30ka qabale ee cusub ee Aadan Faarax doorashadii lixaad ka reebay in loo sharciyeeyo Canfar oo mulkigooda laga dhigo iyo in Soomaalida laga saaro saami qaybsiga ismaamulka Dirdaba oo Axmaaro iyo Oromo oo kaliya la mulkisiyo Aadan Faarax booskan cusub ee mushaharka loogu sameeyay Soomaali wax ma ugu qaban doonaa iyaduna waa su'aal meesha taala oo la isweydiinayo laakiin su'aashan jawaabteeda waxa inaga filan horta Axmed Shide iyo Aadan Faarax ma aaminsan yihiin inay boosaskaas Soomaali ku matalaan jawaabtu waa maya ninka isaga oo awoodii saddexaad ee dalka joogay iska daa Soomaali wax u qabtay qoyskiisa oo la xasuuqayo u hadli kari waayay miyaad u maleynaysaan hadda oo xarunta dhexe oo BB jooga oo la taliyahay inuu Soomaali wax u qaban xataa haddii Aadan Faarax loo doorto ra'iisul wasaaraha dalka lagama yaabo in Soomaali wax u qabo imaankiisa gasho isaga iyo Axmed Shidaba laakiin waa qanciyaal iyo sacabatumayaal hadba cidii awoodda dalka haysa taas lidigeedana waxa loo adeegsadaa awoodda lagu jabiyo madaxtaaga iyo qabka shacabka Soomaaliyeed